tartan loogu magac daray isdhexgalka iyo midnimada bulshada ayaa lagu furay garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco. Tartankan ay ka soo qayb galeen kooxaha heerka koobaad ee kubadda cagta ee gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah magaaladani Burco looga furay. Waxaana furitaanka tartankaasi hadal ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Ismaaciil Weedar iyo mas'uul ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolkani. ayagoona sheegay inuu tartankani yahay mid sare lagu qaadayo isdhexgalka bulshada isla markaana lagu dhiiri gelinayo dhalinyarada gobolka Togdheer waa kuwan mas'uuliyiinta oo arrimahaasi ka hadlaya halkan sida aad daawaneyseen waxa galabta ka bilaabmaya tartan naadiyada heerka koowaad ee gobolka Togdheer oo ka kooban 6 naadi kuwaas oo aan magac daray la dagaalanka qabyaaladda iyo isdhexgalka bulshada sida awgeed waxaan rajaynaynaa sida aad daawaneysaan iyo sida ka muuqata shaashadaha waxaa si wacan oo bilic leh uga soo qayb galay labadii naadi ee tartanka lagu furayay oo wakaaladda biyaha iyo duulista iyo hawada ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maareeyaasha iyo isuduwaha wakaaladda biyaha iyo isuduwaha duulista iyo hawada oo si fiican u soo tayeeyay labadii tiim ee ku ciyaarayay magacooda darkood u helin waxaan tartanka ka qayb galaya 6 kooxood runtii tartanka waxaan u magac daray isdhexgalka iyo midnimada bulshada gaar ahaan dhalinyarada aafada tahriibta iyo xumaanta qabyaaladda ayaan ku suulinaa tartankan oo runtii muddo aan ku soo shaqeynay ayaa ugu dambeyntii waxaan noo suura gatay maanta inaan halkan ka furno runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa laamaha dawladda mas'uuliyiinta oo door fiican ka qaatay furitaanka tartankan oo ugu horeeyo isuduwaha wasaaradda duulista hawada Masar Cabdi Yaasiin Cabdirasaaq iyo dabcan sharaa'iga kale sida dawladda hoose meeyarka wakaaladda horumarka biyaha ciidanka asluubka tiimkiisa Plaza Hotel iyo naadiga gaashaana ciidanka militariga dhanka kale maamulaha madaarka Burco iyo qaar kamid ah kooxaha tartanka horyaalka kubadda cagta ee gobolka Togdheer ee isku aadkooda ahaa goobtaasi ka hadlay ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda ku aadan furitaanka koobkani waxaana ay yiraahdeen munaasabada sida fiican loo soo agaasimay heerka sare ee meesha ka muuqata aad iyo aad bay farax gelisay guud ahaan waxaan soo dhaweynayaa dhammaan ciyaartoyada laamaha hay'adaha kala duwan ee u soo diyaar garoobayna wareegga ka qayb galaan iyo dreeska gashan practice ku sameynaya halkan garoonka aad iyo aad runtii waa bilacaad ma waxaad loogu farxaa dhalinyaradu qaybay ka socoto hadday tahay kuwa iyaga hadday tahay kuwa wakaaladaha kale iyo wasaaradahaba kulligood aad iyo aad baan u hambaliyaynayaa waxaan halkan aan soo koobi karno qadayo kooxda duulista hawada insha Allah waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulkayga duulista hawada aad insha Allah magacay Khalid Xuseen Maxamed Baleya إن شاء الله وحنا كنا نحن يسيدوها قبل كتير من إسماعيل ويدار يوتيفينا يونيفرسيتي labadani kooxood ee lagu furay tartankani isla markaana u kala ciyaarayay wasaaradda duulista iyo hawada ee gobolka Togdheer iyo wakaaladda biyaha Burco ayaa ku soo dhamaaday isfarbardhac gool iyo gool ah si kastaba ahaatee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa u taagan kor u qaadista iyo dardargelinta dhalinyarada iyo sportiska gobolka Togdheer